السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما غيرتي دوبان سلامي عشان ugu saabsan yahay sidee u samaysan lahayn number Mareykan ah markii aan rabno hadhow inaan Bible-ka cashirka soo socdaan ku samayn doono number aan u isticmaalno message-ka iyo waxyaabaha noogu soo dhacaan haddii aan u baahno. Sababtoo ah waxaan samaysana waa Bible Mareykan ah, marka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu IP address-kaaga ku dhibo oo ku dhaho waddanka Mareykanka ma joogtid ee number-ka aan kuu soo dirayna telefoonkaaga kala bax. Isla markaa website-ka ayaa galaysaa, number-ka meesha ayaa lagu soo dirayaa. Website-ka magaciisa waa text now ayaa la dhahaa .com marka aan ku tuso. marka sida u samaysatid marka hore ay browser-ka aad isticmaalaysid furo, kadibna waxaad gashaa textnow.com ayaad galaysaa. kadibna markaa gashid waxaad ku qoraysaa magacaaga koowaad ayaad ku qoraysaa. kadibna waxaa lagaaga baahan yahay magacaaga aan labaad ama saddexaad mid kaarta ayaad geli kartaa, magacaada ayaad iskaga samayn kartaa. kadib wax yar ay raacaan ka jira meeshaas. kadibna waxaa lagaaga baahan inaad magaca u isticmaalaysa username-ka u isticmaalaysid. aniga username sidan ayaan u isticmaalayaa, intaad ka dhigi kartaa. kadibna markaa username-ka samaysatid waxaa lagaaga baahan yahay password-ka inaad samaysatid. xasuusnow password-ka markastaad ayaa u baahan tahay in aad ku gashid markaa rabtid inaad number-ka kala baxdin. kadibna waxaa lagu leeyahay email-ka u baahan tahay inaad isticmaashid. waxaa laga yaabaa marka qaarkood inuu password-ka kaa dhumo si lagu soo diro. email ahaan waa ku geli kartaa, username ahaanna waa ku geli kartaa. kadibna waxaad leedahay check ayaa meesha saaraysaa, security ayaa lagu weydiinayaa. kadibna wuxuu kaa dalbanayaa inaad samaysid, wuxuu kaa dalbaday in front of a store ayaad ku dhufanaysaa. haddii uu kaa qaldamana mar kale ayuu wareeji kartaa si aad mar kale u samaysatid. haddii aad ku guulaysatana waxaa leedahay sign up ayaa leedahay. kadibna iska save garayso ama adaartid iska dhaaf adiga leewaay. kadibna sidan waa sugaysaa. isla markii wuxuu kuu sameynayaa inuu kuu furmo continue ayaa leedahay sida usii wadid. kadibna numberka Mareykanka in lagu subiyo maxaa anigu inta badan waxaan isticmaalay 0209. kadib numberkii ayuu kuu sameynayaa jeega security saar si uu ku ogaado inaad qof tahay. kadib markaad samaysatid wuxuu ku leeyahay waxa laga boorka lagaaga baahan yahay oo wax lagu xayisiiyo. kadibna waxa la verificate ayaa leedahay. waa intaasoo kaliya. numberka lagu siiyo waa kaasa. marka numberkan koobiyeyso meel ayaa dhiga mobilka kaga save garayso ama meesha aad dhigo. numberkaas ayaa muhiim ah. numberkan u isticmaalo waa cashirka soo socda ee Bible-ka. fadlan haddaan cashirkan la soconin, cashirka soo socda waad ku dhibtoonaysaa. la soco insha Allah bina kariim. Bible-kan sameynayna waa Mareykanka. ka faa'iidaysi wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. wajazaakum allahu khayran.